dhammaan walaalaha igu xidhan ee Fatima Muna channelska ku xidhan halkan waxaan idinku soo gudbinayaa iskuul runtii aad iyo aad iyo aad u muhiim ah oo haddii aad tahay waalid ilmihiisu ay dhigtaan manhajka ingiriiska haddii ay tahay GCSE-ga A levelka iyo haddii ay tahay weliba primary schoolka haddii aad rabtid ilmahaaga in group loogu dhigo iyo haddii aad rabtid in one to one keligii casharka loogu soo gudbiyo qaab online ah ilmahaaga oo meeshu doono caalamka ka jooga haddii uu joogo UK iyo hadduu joogo caalamka meel kaleba haddaba dhammaan walaalayaal waxaa ka faa'iidaysataan iskuulkan Key Stage Learning oo ah iskuul tuushana oo qaab online ah ilmahaaga casharada oo dhan ka caawinaya haddii ilmahaagu home school uu yahay iyo haddii uu iskuul dhigtaba mar walba garab ayuu iskuulkani uu noqonayaa iyo casharo ziyaado ah oo ilmaha ka caawinaya oo ku diyaarin karo imtixaanaadkiisa annagoonu ka faa'iidaysanay waa iskuulka inantaydu ay ka dhiganaysay casharadii IGCSE-ga marka maasha Allah tabaaraka Allah runtii aad iyo aad ayaan idinku recommend garaynaya oo aan idin leeyahay idinkuna ka faa'iidaysta Key Stage Learning telefonaadkiisana waxaa ka arkaysaan iyo xiriirkiisa oo dhan halkaasi shaashada ayuu idinku qoran yahay kusoo dhawaada Key Stage Learning أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما ولا لها قيمة يقدر انت مضان ايكو حدن channel كينان فاطمة منا channel خيري برواقة بدن اياني دي رجيني اميلو بودافات دوني ذا كل شوكتان يحلو والبو اذن سو قارو وداوتان فيديو جن قصة تاني وقصة كل عضي قبر ولا لها او كميدا ولا لها قالي قاية كو حدن channel كينان فاطمة منا channel ايا دمان channel لذا ماركت فاطمة منا قصص ولا لها كو حدن ويان gabadhani waxa ay inooga sheekaynaysaa qisadeeda aniga ayaa idin soo gudbinaya qisadeeda waana runtii qiso cibro qaadasho iyo cashar muhiimi uu inoogu jiro ilaahay subxaanahu jalla fi culaa gabdhaheena meel walba joogaan allaha xafido muslimiinta oo dhanna meel walba allaha ku xafido gabadhani waxa ay tiri Fatima Muna waxaan ahay dadka ku daawada ee kugu xidhan qiso cajiiba ayaa isoo martay hada iyo jeer wadamada ma sheego marka aan qisaska soo gudbinayo laakiin qisada tani waa mid muhiima inaynu sheegno gabadhu meesha ay kala kulantay dhibta si aynu ugu barano cashar wadanka iyo wadamada kale ee caalamkaba inaynu ka taxadurno aynu taxadurkeenu bato oo dadka ajaanibka ah aynaan maaragtay aad iyo aad uga taxadurno oo cid walba aynu ka taxadurno run ahaantii khaasatan qofka ajnabi ah oo aanad dhaqankiisa garanahayn waxa uu ku maleegayo iyo dhibta ku gelin karana aanad ogeyn haddaba qisada ayaanan ka hor dhicin gabadhani waa gabadh dhalinyaro ah waxa ay soo degtay dalka carbeed ee la yiraahdo Masar waa dal khayr qaba oo dad badan oo fiican waa malaayin dad ah oo sheekh iyo shariif bale laakiin waxoogay dadka xunxunna dabcan meel walba way joogaan gabadhan walaashiihi waxay tiri waxaan aan soo degay dalkaasi Masar aan soo degay cid qaraabo ah oo ma garanaysa aan wuxuu nahay ma degana meesha waxay sheegtay gabadha walaashiihi in marka ay magaalada ay soo degtay guri loo kireeyay zawjkeedu gabadha waa la qabaa waxay tiri marka anigu keligay baan ahaa markaa meesha soo degay waxa marka muraadkay meesha usoo degtay waxa inuu odaygeedu halka uga soo dacwoodo waxa uu degan yahay odaygeedu marka dal kamida wadamada reer galbeedka wadamada gaalada dal kamida ayuu degan yahay inuu u dacwoodo oo halka uu keensado ayuu muraadku ahaa marka sababtaas uu Masar u soo dejiyay isla marahaanta wiilal uu yaqaano ayuu yiri guri ii raadiya oo maaragtay xaaskaygu soo degto sidii baa gabadha guri loogu raadiyay gurigii ay soo degtay waxa uu ahaa guri Soomaalida ka fog oo aan maaragtay dad Soomaali eriyadaas oo dhan ayna deganayn ayuu ahaa isla marahaanta gabadhan waa gabadh dhalinyaro ah waana qof keligeed ah musaafir keligeed meesha soo degtay markay soo degtay ee wax yar deganayd meesha zawjkeedii ayaa ka soo yimi wadankii reer galbeedka ahaa ee uu joogay si uu xaaskiisa u soo booqdo waqti wanaagsan ula soo qaato waa reer markaa muddo gaaban isqaba
waxa uu awlaadna aan weli isu dhalin. marka waxa dhacday in uu zawjkeedii halkii uu deganaa uu ka yimi ee uga dacwoonayay. wuxuu ugu yimi meeshii ay deganayd ee Masar. waqti ayuu la qaatay, muddo gaaban ayuu la joogay, kadibna waxay noqotay fasixiisii inuu dhammaaday oo uu ku noqdo, uu safro, uu ku noqdo meeshii isagu uu deganaa ee maaragtay wadamada reer galbeedka meel ka mid a. marka walaashu waxay tidhi maalintuu zawjkaygu dhoofayay waxa aan codsaday taxi ayaanu dalbanay. taxigii noo istaagay na soo qaaday wuxuu ahaa oday weyn oo da-weyn. waxa markaasi odaygaasi markuu na soo qaaday ee aanu na geeyey airportka si aan odaygayga u sagootiyo, waxaan ka codsaday bay tidhi inaanu iga tegin ee uu isugo inta odaygaygu airportka uu ka gelayo. kadibna markuu odaygu uu maaragtay xaajigaygu maaragtay uu galo airportka ee aan ku sagootiyo halkaasi, uu isla taxigaasi haddana isagoo isugaya uu isoo qaado oo uu gurigaygii igu soo celiyo. waaya buu yidhi. halkii ayuu taxigii igu sugay. airportkii baan xaajigaygii la galay bay tidhi. terminaalkii uu ka dhoofaya markaanu gaadhay ee aan macasalaameeyey ayaan ku soo noqday taxigii. walaashu waxa ay leedahay taxigii markaan ku soo noqday waxa uu ninkani uu kadib wixii keenay bay tidhi gurigaygii. kadibna waxa rukun ayuu ii noqday. telefoonkiisii ayaan qortay si markaan taxi u baahdaba aan odaygan waco oo uu ii qaado. wuxuu ii sheegay inuu xaas iyo caruur leeyahay. waxa uu i waraystay marka uu meel aan u baahdaba isagaan wacaabay tidhi. rukun ayaan u noqday amba uu ii noqday. mar walba uu i kaxeeyaa marka isaga unbaa wacdaa. waxaa dhacday marka ninkaasi uu i kaxaynayo in uu baabuurka, dabcan 2 qof oo gaari wada saaran weeyaan, wuu i waraystaa. su-aalo ayuu igu soo tuuraa, waxbuu i weydiiyaa. waxyaabuhu i weydiiyo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan yaa kula degan, waddanka cid ma ka taqaanaa, qaraabo ma ku leedahay, dad ma taqaanaa. maxay hayday yacnii waxaan u sheegay oo ninkani ogaaday inaan ahay qof keliya oo waddankan keli ku ah, yacni inaanan ehel iyo qaraaba meesha ii joogin, jaar soomaaliya iyo cid yacni maanta cid iyo ciirsi toona meeshan inaanan ku haysan ayuu ninkii ogaaday. kadibna waxa uu igu yidhi guriga aan deganay amba cimaaradda amba sarta aan deganahay guri ayaa ka bannaan. ka waran haddaad agtayada soo degtid oo aad maxay hayday gurigaasi aad kiraysatid. gurigu markaa gurigan aan ku jiro bay tiri walaashu waa guri ka jaban oo ka qiimo jaban, yacni marka la yidhaahdo kirada waa guri ka kira yar. marka waxaan ku idhi kol haddii gurigan aan deganahay gurigaasi uu ka raqiisaysan yahay, macno ma laha, waxa weeyaan depositkan iska bixin waana soo degi doonaa gurigaasi oo waan soo guuri doonaa ayaa ninkii aan ku idhi. isla mar ahaanta ninkan tagsiilaha sidaan ula macmiilayba waxa dhacda in zawjkaygii iyo anigubay tidhi mashaakil badan oo kolkii hore dhexdayada aan jiri jirin ay timi. mashaakilkaasi markaa waxay sabab u noqotay zawjkaygii inaanu markasta telefoonka ku muranno, inuu lacagtii biilka iyo lacagtii kirada ee kolka hore uu ii soo diri jiray uu igu dhibo, inaan maaragtay markasta xanaaqo, inaan markasta maaragtay idhaahdo ifur, in yacni dhibaato badan ay dhexdayadii ay timaado. marka ninkan maxay hayday tagsiilaha ah markuu i qaadayo waxaan markaa isu soo qoray madrasadaasi si aan ugu qaato sharci. dabcan Masar qaabka loo degaa waxa weeyaan inaad adigu arday noqotid amba ilmaha aad dhashay uu arday noqdo oo markaa sharci arday ayaa lagu degaa. marka amba waxaad noqonaysaa waalidkii ardayga xanaanaynayay maaragtay ilmahaagu hadday iskuul ka dhigtaan meesha, oo iqaamadda waxaad ku qaadanaysaa inaad muraafiq u tahay amba la socotid amba xanaanaynaysid ood haysid ood korinaysid cunug meesha wax ka dhigta. amba iqaamadda waxaad ku qaadanaysaa haddaanad awlaad haysan inaad adigu laftigaagu iskuul isa soo qortid. iskuullada matalan ba al azhar la yidhaha ama iskuullada kale ee matalan ba luuqadda carabiga lagu barto ayaad haddaad qof weyn tahay isa soo qori kartaa oo aad odhan kartaa iskuulkan maaragtay arday baan ka ahay sababtaas iqaamadda igu siiya. marka ardaynimo ayaa meesha lagu degaa. marka si aan
sharci ardaynimo aan u qaato dantii waxay igu kaliftay bay tiri walaashu inaan iskuul isa soo qoro. ninkan markaa wuu i qaadayaa daily qof iskuul dee u kalahaya maalin walba waa 5 cishaa wiigii waa qiyaasan kartaan. marka waxa weeyaan maalin walba ninkii rukin baan ka dhigtayoo maalin walba wuu isii wadaa wuu isoo wadaa haddaan dan iyo muraad kala yeesho haddaan dhakhtar tago haddaan wax kale u baahdo wuu i kaxaynaya isaga baan ku qoranay bacdimaaba isagii rukin aan ka dhigtay oo macmiil aan ka dhigtay oo ninka nambarkiisa intaan qortay mar kasta isagii aan wacayo. waxaa dhacday markii dambe gurigii uu ii ammaanay ee ugu yidhi gurigaaga wuu ka raqiisisay imisa kiradaadu tahay ma intaasaa kan uu ka jaban yahay waana agtayda maxay hayday agtayda soo deg. sidii baan gurigii u soo degay. xilliga gurigaa aan soo degayo waxa weeyaan xilli markaasi qalliin aan geli doono. qalliin ayaan galay oo markaasi meesha maaragtay dhakhtaradooda ayaa laygu qalay. qalliinkaasi oo markaasi aan rabo inaan galo ayaan ka hor soo degay meeshan. run ahaantii waxaaban u arkay inay dadkani noqonayaan dad i caawinaya oo garab ii noqonaya oo jaar aan yeelanayo. bacdimaaba ninkani nin wanaagsan uu noqday oo aan aaminay oo maxay hayday xaaskiisii iyo dadkiisiina meesha aanu jaar noqonay. gurigii waan soo degay depositkii wixii layga rabay waan bixiyey. gurigii markii aan soo degay bay tiri walaashu waxa i xidhiidhiyey markaasi oo ehelba ii noqday ninka xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaaba dad ii noqdayba oo i kaalmaynaya oo qalliin baan markaasi aan galay bay tiri. waxay tiri walaashu markaasi qalliin ayaan galay. qalliinkii markaan galay ninkani waa ninkan dee tagsiilaha ah ee mar walbaan la tacaamulayo isagaa i geynaya isagaa iga keenaya meeshii aan u baahdaba. ugu dambeyn qalliinkii ayaan galay. qalliinkii markaan galay maaragtay qalliinkii ii dhammaaday dhowr saacadood ayaan meeshii aan joogay. kadibna markii aan laygu yidhi dhakhtarka ka bax waxay ahayd bay tiri markaa waqti habeen badh ah 1 habeennimo ayay tiri. marka waxaan ku yidhi saaro gurigaygii ge wuu i qaaday buu tiri ninkii hadduu i qaaday xanuunkii waxaan markaasi aan dareemayaa bay tiri walaashu xanuun ma garanaysaa ma dareemaya bay tiri markan oo weli waxa igu jirta dawadii kabuubyadii baa weli igu jirta maaragtay. kadibna gurigaygii markaan tegay ninkuu maaragtay gurigaygii hordhigay ayaa aan gurigaygii iska galay. waxay tiri walaashu xanuun cir iyo dhul meel uu ka yimi aanad garanahayn ayaa igu dhacay. aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan u xanuunsaday. xanuunka awgii xitaa naqaska ayaaba i qabanayay. kadibna odaygii ayaa wacday. waxaan ku idhi tagsiilaha ahaa waxaan ku idhi abu hebelow yacni aad baan u xanuunsanaya ii kaalay. waxa uu igu yidhi markaasi wuu ii yimi bay tiri. waxaan jeclay inay tiri wuxuu igu yidhi soo sawir maaragtay warqaddii ay kugu qornayd dawooyinkiisa aan kugu soo iibiyo farmasiyada kuwa furan hadda aan kaaga soo qaado irbado iyo dawooyin maaragtay. marka waxay tiri waxba ma sawiri karo aad baan u xanuunsanayaa. ugu dambeyntii gurigiiba uu igu yimi wuu i kaxeeyey dhakhtarkii ayuu igu celiyey. gabadhii dhakhtaradda ahayd ee i qashay ayaa la igu celiyey. gabadhii markii la igu celiyey waxay tiri walaashu waxaa markaasi laygu muday dawo maaragtay xanuunka baabiinaysa. waan iska ladnaaday. kadibna wuu i qaaday. wuxuu igu yidhi kol haddaad sidan u xanuunsanaysid gurigaaga kuma geyn kara ee gurigayga aan ku geeyo. walaashu waxay leedahay xilligan ma ogi xataa inuu xaas iyo caruur leeyahay inuu keligii guriga degan yahay inuu gabadh leeyahay xaas leeyahay inuu magaranaysa caruur leeyahay waxaasoo dhan xilligaa maba ogiba. laakiin xanuun i haya oo fara badan awgii ayaabay maskaxdayduba maaragtay xanuunkan mashquul ku tahayo waaye ayuun baan idhiya gurigaaga igee waaye. waxay tiri ninkii odaygahaa abu hebel gurigiisii ayuu i geeyey. gurigiisii nasiib wanaag waxaa joogtay marka xaaskiisa iyo 4 caruura oo uu dhalay. waxaa jirtay gabadh weyn oo uu dhalay oo xilligaa aan guriga ku sugnayn oo ku jirta meel tababar ah oo askarinimo ayay barataa. gabadhaasi guriga may joogin laakiin caruurtii kale iyada ka yaryaraa ayaa guriga joogay iyo weliba xaajiyadiisii. waxa dhacday halkii ayay reerkii ay igu xanaaneeyeen ayay tiri walaashu. waxay tiri walaashu markaasi waxay bilaabeen reerkii inay xanaaneeyaan reerkan masaarida ihi. waxay tiri dhaxan badan ayaa meesha ka dhaca.
aniguna waaba qofkan qandhan ee xanuunsanaysa ee qalliin ka soo baxday ee maaragtay xanuun iyo kaar badan uu hayo ayaan ahay. waxay markaas iyaan waxa la yaal wixii busta gurigooda yaalay oo dhan bay soo huwiyeen intaan idhi waan dhaxmoonaya waan qarqaraya ayaa waxa la yaal wixii busta gurigooda yaalay oo dhan ayay soo huwiyeen. haddana waxay tidhi walaashu waxay sameeyeen in waxa aan markaasi dawooyinkaygii ayay ii soo qaadeen oo farmasiga iga soo qaadeen kiniinyaal iyo irbado ayay igu mudayeen. anigu dawooyinkan ma garanayo ma kuwii saxda ahaa ee dhakhtarku ii qorayba ma dawooyin kale igu durayaan oo maaragtay irbado kale ayay i siinayaan allahu aclam. laakiin irbado ayay i siinayeen dawooyin ayay i siinayeen. maalintii ugu horreysay waa tan habeenkii oo dhan qalliinaan kasoo baxay kowdii habeennimo xanuun badanay qabtay gurigaygii markaan tegay ninkii aan u wacday dhakhtarkii lay geeyey. marka ilaa intay cadceedu soo baxaysay ee subaxnimadii la gaadhayay ilaa intaas haddana gurigoodii lay geeyey marka ilaa subaxnimadii laga gaadhayay ma habeenkaasoo dhan dee maa seexan aad iyo aad baan u rafaadsanaa. marka reerka gurigoodii lay geeyey ee waxa la yaal wixii busta gurigooda yaalay lay huwiyey ee irbadihii ay igu mudeen 6dii subaxnimo amba 12 saac oo subaxa markii la gaadhay hurda ii timi oo waan iska seexday. markaan seexday waxa intii aan hurday waxa laga shaqaystay telefoonkayga. walaasha markaa telefoonkeedu malaha kood iyada gaar u ah kuma xidhna waa telefoon iska furan. sidii bay telefoonkii uga faa'iidaysteen way qabteen telefoonkii waxay tidhi way fureen waxay yacni telefoonkayga fureen waxay galeen markaasi sawiradaydii facebookaygii gmailkaygii yacni emailadaydii baasaboorkaygii wax walboo macluumaad oo telefoonka iigu jira ayay lala wareegay. waxaan gurigii reerka aan ku jiray muddo 4 habeen iyo 4 maalmood ayay tidhi walaashu. markaan idhaa waa ladanahay gurigaygii baan ku noqonaya gurigaygii baan tegayaa maya gurigaaga ba tegaysid weli waad xanuunsan tahay waa inaan ku daryeelno ma rabna inay maxay ahayd ay halkaasaa tagtay oo keligaa baa tahay sug horta weli aan ku baxnaanin oo aan ku caafimaadkaagu ha fiicnaada iska sug joog 4 habeen iyo 4 maalmood ayay meeshii igu haysteen bay tiri. dib baan maanta isu weydiiyaa talow dawooyinkii ay kugu mudayeen ma tahay dawooyinkii saxda ahaa ee dhakhtarku kuu qoray mise wax kale ayay kugu mudayeen. waxa dhacday maalintii koowaadba markaan seexday waa tan telefoonkaygii laga shaqaystay ee waxa la yaal wixii macluumaad ku jiray oo dhan waa laga wareejiyey ee yacni ay koobi ka wada qaateen ay telefoonaadkoodii amba telefoonkoodii ku wareejiyeen. markaan soo kacay waxaa loo wacay inantoodii meel kale joogtay tababar military amba maaragtay askarnimo ku jirtay ayay u waceen inantii baa lagu yidhi guriga kaale inantiiba guriga timi. gabadhii markay timi curadii reerka ahayd iyaduna telefoonkayga ayaabay ka shaqaysatay waxa la yaal wixii macluumaad ku jiray iyana way wareejisatay. isla mar ahaanta anigu waxaan jecelay bay tiri shaaha cadayska ayaan jecelay waxaan dareemaya inaan isku kululeynayo shaaha cadayska. markasta waxaan ku idhaa cidda shaaha cadaysa ii keena. shaaha cadaysa ii keeneen mar walba ay ii keenaan oo aan cabbaa oon isku diiriyaa. shaaha cadayska ah waxay igu soo darayaan reerkani ma garanaya bay tiri walaashu. waxay tiri reerkan masaarida shaahan cadayska markay ii keenaan ee aan cabbo wax maaragtay ay igu dareen ma garanayo laakiin waxaan isku arkay in wejigii bararay in cagihii maaragtay barareen in calooshii halkaas soo istaagtay oo aan sidii qof xaamilo ah aan noqday oo aan bararay oo calooshii weynaatay oo maxay ahayd anigii dhamma aan bararay oo anigii dhamma aan isbedelay ayaan dareemaya. ma garan karo waxaanay isiinayaan waxa uu yahay laakiin waxaan jirkayga ka arkayaa isbedel aad iyo aad maaragtay u xun amba ma garanaysaa isbedel aad u weyn ayaan jirkayga ka garanaya. calooshaydii way weynaatay sidii qof xaamilo ah ayaan noqday. waxaan noqday maxay ahayd qof dhinac walba ka barartay wejigii ma garanaysaa lugihii meel walba ka barartay. arrintaasi waxay ugu noqotay arrin aad iyo aad la yaab u leh. waxay tiri barar awgii ayaa waxaan dareemayaa kabobyo inay yeelanayaan gamcahaygu. ciddiyaha waxaad dareemayaa sidii waxay iga soo dhici rabaan oo kale yacni bararkaa awgii. lugahayga waxay tiri haddaan farta geliyo way diismayaan way riixmayaan waxaad mooreysaa yacni god bay noqonaysaa meeshii aan farta ku taabtay. xaalad noocaasa oo caafimaad ayaa ila soo daristay.
anigu waxa aan u haystaa qalliinkan laygu sameeyey awgii in xaaladahan aan marayo isbeddelkan jirkayga ku yimi ay sabab u tahay. reerka markaa waxaan ku idhaahdaa waxaan rabaa in aan gurigaygii aan aado. haddaba markii 4tii habeen iyo 4tii maalmood ay dhammaadeen ee reerka aan la joogay, waxaan ku idhi bay tidhi waxaan rabaa inaan gurigaygii tago. marka waxaa laga yaabaa halkaa inaan sheekada qaldayo anigu. gabadhani hadda kadib bay usoo guuri doontaa cimaaradooda. waxaa laga yaabaa inaan idhi way soo guurtay, laakiin may soo guurinee qalliinka markan lagu sameeyey ee gurigoodii reerku ay geeyeen amba ninku uu geeyo gurigiisii, waxay deganayd weli gurigii hore ayay deganayd. kadibna waxay ku tidhi markii 4tii habeen iyo 4tii maalmood ay la joogtay, waxaan rabaa inaan gurigaygii tago oo ay geysaan gurigayga. waxay ku yidhahdeen maad joogtid, waad xanuunsanaysaa weli, nala joog. waxaan ku idhi bay tidhi maya, waan soo guuri doonaa oo gurigan dariskiina ayaan soo degi doonaa ee madhan, laakiin hadda waxaan rabaa inaan gurigaygii tago. 5 maalmood baan maqnaanayaa, waan isa soo diyaarinayaa, waan soo guuri doonaa. gabadha maaragtay bawaabku ninka guriga ilaaliya, ilaalaha guriga ee albaabka fadhiista ee maaragtay guriga ilaaliya, xaaskiisa ay caawisa, taasaan u yeedhan doona. iyadaa maaragtay wixii xidhxidhi doonta oo iyada ay soo caawin doonta. waayo bay ku yidhaahdeen. walaashu marka waxay deganta guryahan alaabtu dhex taallo, shaqa mafruusha ayaa la yidhaa. marka guriga wax walba ayaa dhex yaalla. waxaad la soo galaysaa dharkaaga, hadhowna dharkaaga unbaad la baxaysaa. kuraastii, fadhigii, hurdadii, wax walba gurigaasuu dhex yaalla oo lagu karaysanaya. markaas waa guri markaa goglan. marka waxay tidhi gabadhaas ay caawin doontaa, dharkayga waxaa iisoo xidhxidhi doontaa, waan gurigaygii baan tegaya, waan soo noqon doonaa sida ugu dhaqsaha badan ayaan soo degi doonaa gurigan dariskiina, ayaan qoladii masaarida ku idhi. waayo bay igu yidhaahdeen. sidii baan uga tegay, dhowr cishaan maqnaa. kadib waaban usoo guuray oo gurigii agtooda ahaa ayaan soo degay. gurigii agtooda ahaa markaan soo degay, waxaa ii timaada markaa guriga iigu timaada gabadhooda weyn. mar walbay gabadhaasi ay ii timaado waxay ii sidaa markaa cunto, sharaab, khaasatan waxay ii sidaa shaahii caddayska ahayn jeclaa, kafay maaragtay ii sidaa, bacdamaaba waxyaabaha aan jeclay inaan cabo, khaasatan shaaha. mar walba ii keento, waxaana ii keento iyadoo ilamana cunto ilamana cabto. waxay igu tiraa gurigayga baan kasoo cunteeyey, aniga unba ii siisaa oo ay igu tiraa cun oo cab waxa ay maaragtay ii keento. laakiin iyadu mar walba waxay tiraa anu gurigayga baan kasoo cunteeyey, gurigayga baan kasoo cabay. waxba waxaanay keenayso aniga ilama wadaagayso, iyadoo ilama cabayso amba ilama cunayso. isla mar ahaanta gabadhani telefoonkayga qaadataa. gabadhu markaa waxay tidhi telefoonkayga yani kood ma laha oo number sir ah ma laha. marka waxa weeyaan markii hore inaan idhi waxa laga yaabaa inaanu kood lahayn ayaa qisada bilowgeedii aan ku idhi. laakiin hadda markaan codkii dib u dhageystay, waxay tidhi telefoonkaygu wax uu leeyahay kood ku xidhan oo kelimad sir amba number sir ah ma jiro, wuu iska furan yahay. waxay tidhi gabadhu markay ii timaado way ila soo fadhiisataa oo cuntadii amba sharaabkii amba wixii ay keentay, shaahii ay keentay i siisaa, cabbay igu tiraa amba cun. halkiina waxay qabsataa telefoonkayga, hortayda telefoonkayga qabsataa. anu gabadhi yaaciskama dhaho bay tidhi. telefoonkayga ii dhig ma idhaahdo, telefoonkayga maxaad ka baadhanaysaa ma idhaahdo, telefoonkayga wadaa, facebookay gashaa, magacaa maxaad ka wadaa, qofkaasi waayo, maxay isu tihiin, kaasi muxuu ahaa, kani muxuu ahaa, ayay ku wadaa. waxay tidhi waan arkayaa inay screen shot ka qaadanaysay, sawiranayso waxyaabaha qaar ee telefoonkayga ku jira. waxay i weydiiso siday taan uga jawaabaa. waxaanay sawiranayso iyo waxaanay wareejisanayso maxaad ka wadaa ma dhihi karo, ma aqaano maaragtay sababta aan uga aamusanahay. laakiin gabadhan telefoonkayga ayay wadwadaa. isla mar ahaantaana waxay samaysaa waraaqo, waxyaabo xariijimo ah, waxyaabo maaragtay sawir ah, waxyaabo kelmado aanan macnahoodii garanahayn, ayaa intay warqado ku xarxariiqdo ayaa waxay ii gelisaa kuraasta fadhiga dhinacyada ayay gelisaa. maaragtay kolba dhinacay gelisaa. waan arkayaabay tidhi. haddana waxay tidhi yaciskama dhihi karo, waxaan muxuu yahay ma dhihi karo. isla mar ahaanta waxay tidhi sanka mararka qaar dhiig ayaa iga da'a, allah idin ciseeyo, tuumbo camal iiga da'a, xanuunkii wuu igu sii badanayaa, bararkii, calooshayda ilaa halkaasay tagto, qof xaamila ah lay moodaa. xaaladaydu waa xaalad aada u barako badan. isla mar ahaanta waxa dhacday in ay maalin maalmaha ka mida markaan gurigii marka agtooda ayaan soo degay. reerkan waa kuwanoo dee ayagiiba maamushaba oo i xidhiiriya, cid kale meesha kumaba haysto, oo ayagiibaa man ehel ka dhigtay. waxaa dhacday markaa inaan hadda ka hor aan reerkan aan ku idhi ma garanaysaan quraan saar, sheekh quraan saara ma ii garanaysaan si quraan aan isu saaro. waxay igu yidhahdeen maya maya, ereyadan oo dhan ma jiro maaragtay sheekh dadka qur-aanka saara. waxay tidhi markaasi waxaan ku idhi reerkii ma garanaysaan cid qur-aan meeshan ku saarta dadka
waxay igu yidhahdeen maya shuyuukh quraan meeshan dadka ku saarta ereyadan oo dhan ma laha. waayahay inantoodu bay tiri markay guriga iigu timaado waxyaaba la yaab leh oo badan ayaan ku arkaa. telefoonkaygana ay maamulanayso cuntadan iyo shaahan iyo waxaana ii keenayso, waxaana iyadu iga cunahayne aniga laakiin cunto i siinayso sharaab i siinayso mooyaane. waxaan kaleen ku arkay bay tidhi kijada waxay gashaa bay tidhi musqusha ayay gashaa, allah idin ciseeye. musqusha markay gasho wax badan ayay ka dhex qabataa musqusha, qasaaladay jiijiidaa, shanqar baan maqlaa. markay meesha kasoo baxdo musqusha, allah idin ciseeye, aad qarmuun badan ayaa kasoo uraya, allah idin ciseeye musqusha. waan yaabaa maxay ku samaysay meesha. waxaan kaleen arkay bay tidhi markay ii timaado inaan waayo dharka hoosta laga xidho amba maaragtay allah idin ciseeye kastuumada. oo kastuumooyinkaasi waxay tidhi markaa gabadhan markaa qalliinka lagu sameeyey waa xagga maaragtay raximka ayaa laga qalay. marka waxay tidhi kastuumooyinkaygu allah idin ciseeye runtii waa muhiim inaan intaa kusoo daro oo aanan ka xishoonin, sababtoo ah waa muhiim waxyaabahaas oo kale inaynu fahano. marka waxay tidhi kastuumooyin aan iska bixiyey oo markaasi yani allah idin ciseeye yani dhiig leh ayaa waxay tidhi jira oo maaragtay musqusha maaragtay qasaalada aan geliyo oo weli aanan dhaqin. way qaadataa tiraba 3 kastuumo oo noocaasa oo nijaastaasi ku taalo ayay qaadatay. isla mar ahaantaana timaha ayaa aad iiga daadan jiray. timahani markay iga daataan shanladii amba maaragtay garfeedhii oo musqusha ii taalla allah idin ciseeye oo timo badan ay ku yaalaan ayaan waayi jiray, timii baan waayi jiray. oo wax muhiima maaragtay in aynu fahano qaabka dadka shayaadiinta la shaqaysta ay maaragtay dadka ay u dhibaateeyaan. sababtaasay muhiim u tahay waxyaabahaas oo kale yani inaynaan ka xishoonin oo aan sheegoon magacaabo weeyaan. sababtoo ah waa qaabka ay dadka wax ugu sameeyaan moogtay dadka maaragtay shayaadiinta la shaqaysta. waxay tidhi markaa maalinkii dambe marka waxay tidhi wax waraaqay qorqoraysaa waxyaabo qaar aan la akhriyi karayn, waxyaabo aan la fahmahayn, waxyaabo maaragtay sawiro 4 geesiyo 3 geesiyo wax aynaan garanayn ayay xarxariiqaysaa. waxay gelinaysaa soofada amba kursiga fadhiga ee dhinacyadiisa ay gelgelinaysaa. maalinkii dambe waxaan arkay warqaday gelisay oon kasoo daba saaray markay iga baxday. warqadii haddaan kala furay kelmad aan fahmi karo oo qoraalkeedu waadix yahay ayaa ku qornayd. kelmaddaasi waxay ahayd infisaal. infisaal infisaal kelmadda carabiga ah infisaal micnaheedu waxa weeyaan kala tag. kala tag ayaa ku qoran. waxay tiri gabar yar oo walaashay ayaan telefoon u diray. waxaan ku idhi heblaayoy bal fiiri ma anigaa moodaya waxa halkan ku qoran mise maxay kula tahay waxa meesha ku qoran baan ku idhi. waxay ugu tiri waxa ku qoran infisaal, kala tag ayaa ku qoran. kala tag amba furiin ayaa laga wadaa marka infisaal. furiin amba kala tag ayaa ku qoran. waxay tiri waxaan arkay waxaanaan akhriyey inuu sax yahay, walaashay waa tan iyadiina ii sheegtay, waa nagan kelmad cadde yani infisaal kelmad yani wax waadixa bay ahayd. waxay tidhi isla mar ahaanta bararkii wuu gusii badanayaa, calooshii intaasay sii leekaatay, xanuunkii sanka dhiig baa iga socda, yacni timi waa iga daadanayaan, xaalado cajiib ayaan ku jiraa. odaygaygii khilaaf aan dhammaanahayn baaba naga dhexeeya. way caayayaa, way dagaalayaa, fur baan leeyahay, ma maqli karo, ma arki karo, lacagtii wuu igu dhibayaa, kadeed adduunyo ayaa ii bilaabmay. waxa dhacday in odaygii markii uu qaadi jiray markaan u sheegan ku idhaa odaygay qabaa way dhibaateeyaa, wuxuu igu oran jiray iska fur ninkan haddaanad habi ku ahayn oo ku dhibaataynaya iska furde muxuu kuu qabaa ayuu igu oran jiray. isla mar ahaantaana waxa dhacday markanaan weydiiyey quraan saar ay igu yidhaahdeen ma naqaano quraan saar, cid quraan dadka ku saarta meeshan ma joogto. ayaa maalin maalmaha ka mida ayaa waxaan isidhi waata dhakhtarku kugu yidhi socodka badi bararkan iyo waxane bal maxay hayday soco oo banaanka u bax. marka hore maalmihii hore gurigan ku dhex socon jiray tiri, marka maalin maalmaha ka mid ah waxaan isidhi banaanka u bax. dukaan baan markaa arkay waxyaabaha shoppingka ee waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan iyo waxaas haya. dukaankii markaan arkay iyadu shopping bay tiri kelmadda, laakiin anigu waxaan u fahmay shopping malaa kariimaadka dumarku marmarsadaan iyo waxyaabaha isku qurxiyaan ayaa kolley dadka aan ka maqlay shopping ay u yaqaaniin. shopping dee wax walba lasoo adeegto ayaa la yidhaahdaa, waa adeeg kelmadda shopping waa kelmad inglisha. laakiin waxaan filayaa dadkeena gabdhaheen waxay u isticmaalaan meesha kariimyada iyo waxyaabaha isku qurxiyaan ay kasoo iibsadaan ay yidhahdaan shopping. amba shopping baa soo samaysanaya waxaas ay yidhahdaan. marka calaa kulli xaal waxay tiri dukaan shopping ka haya ayaan arkay
oo waxaan isiri dukaankaasi alla ilahe soo indhe waxa uu hayana soo eeg adiguna mijabaxsi ka dhigo hawada soo qaado yani yara lugeeyo banaanka u bax sidii ayaan u baxay bay tiri sidii markaan usoo baxay meeshii dukaankii shoppingka ahaa waxaan kusoo arkay marka dad Suudaana ayaa lahaa dukaankaasi gabadh Suudaaniyada iyo maartay dumar Suudaan ayaan meesha kusoo arkay waanu isa salaanay waanu isbaranay gabadha markaa qisada walaashan qisada iska lihi luqadda carabiga way taqaanaa oo maaha qof aan luqadda carabiga aqoonin waxa ay markan ay Masar soo degayso ka hor ay deganeen dal ka mid ah dalalka carabta marka way taqaanaa carabiga marka waxay tiri gabadhii Suudaaniyada ahayd ayaa la sheekaystay waxay igu yiraahdeen maxaa kugu dhacay waa maxay bararkan waa maxay calooshan weyn ma uur baad leedahay maxaa xaamila tahay waxaan uga sheekayay xaaladeydii waxaan u sheegay inaanan xaamila ahayn laakiin bararkaan isku arkay qaliin inaan sameeyay raximka ku saabsan amba makaanka kolba saad u taqaanid in bararkan aan isku arkay jirka oo dhan lugaha meel walba inaan maaragtay xaaladeyda caafimaad ayna fiicnayn waxaan uga sheekayay zawjkayga inay mashaakil badan dhexdayada ay jirto inuu ninkaasi maaragtay dhibaato badan ay dhexdayada ay maaragtay waqtigan xaadirka iyo khilaaf badan uu jiro inaan taaganahay ifur oo isaguna uuna ifurahayn inuu aad ii dhibayo waxaasoo dhan ayaan uga sheekayay waxaan idhi waxaan u baahanahay quraan saar ayaan u baahanahay miyaanu meelahan jirin sheekh dadka quraan saara waxay ugu yidhaahdeen haa shuyuukh badan oo quraanka saartaa meeshan taal jirta waxaa jira shuyuukh masaariya waxaa jira shuyuukh maaragtay sheekhyo Suudaan ah marka way jiraan shuyuukh dadka quraanka saara waxaan ka yaabay marka talow reerkani waa kuwa sida kale ku daryeelay ku caawiyay maaragtay wehelka ku noqday agtoodii ku soo dejiyay wax badan ku qabtay talow maxay kaaga hakradeen sheekha quraanka dadka saara wadigii ku yiri sheekh quraan dadka saara hadda garanaysaan ii sheega aan taga talow maxay kuugu diideen talow maxay kaaga hakradeen oo kuugu yiraahdeen sheekh quraan dadka saara ereyadan malaha ayaan isweydiiyay bay tir walaasho gabadhii Suudaaniyada ahayd markaan xaaladeyda u sheegay bay tir walaasho aan u sheegay markaasi inaan xanuunsanayo ciddan masaarida inaan agtooda soo degay inay iyagu 4 cisho gurigooda igu haysteen oo aan xanaanaynayeen isla mar ahaantaana inay telefoonkaygii maamushaan telefoonkaygii waxa la yaal wixii sawirro iyo information ku jiray warbixin ku jirtay oo dhan in la igala wareegay gabadhoodu inay ii timaado oo guriga ay maaragtay dhinacyada soofada ay alaab gelgeliso waraaqo gelgeliso wax ku qorqoran yahay telefoonkayga dhan inay gacanta ku haysato inta ila joogto wixii oo dhan baan u sheegay inay ii keento shaah iyo cunto iyo wax ay ii keento oo haddana iyadu ila cuni weydo wixii oo dhan baan sheegay kastuumooyinkii Allah idin ciseeyay dhiigga lahaa maaragtay kijada masuuliga ii yaallay inay qaadatay oo aan 3 waayay in aan maxay hayde wixii oo dhan baan u sheegay timahaygii inaan waayay wixii oo dhan markaan gabadhii u sheegay ku yiri zawjkaygana dhibaato badan baa iga haysataa waa musaafir meel dal kale u degan yahay muran iyo mashaakil badan sidaan ciddan u bartayba odaygaygii aniga iyo isagu guurkaygu guur xasilan ma aha mashaakil iyo muran iyo dhibaato badan ayaa dhexdayada taala gabadhii Suudaaniyada ahayd markaan arrinteedii u wada sheegtay ay calooshaydii aragtay ma uur baad leedahay maya melihi sidan ay calooshaydii noqotay sidan aan u bararsanay sidan aan u xanuunsanaya dhiigga bisanka ayaa iga daaya aan basanka dhiig baa iga daaya Allah idin ciseeye wixii oo dhan markaan u sheegay waxay gabadhii Suudaaniyada igu tiri waan ku haya maxay hayday sheekh quraan saar ah waan ka buuxaan shuyuukhdu meesha Suudaan iyo Masaariba marka waan ku geynaya waaye baan idhi baabuur bay igu qaaday gabadhu marka waxay leedahay dukaan bay tiri shopping ah shoppingkan waxaan u fahmay kareemaadka iyo waxyaabaha dumarku ay marsadaan iyo waliba coiffeur yani isku yaala meel dhinacna timaha dumarka loogu hagaajiyo lagu qurxiyo iyo jirkaba lagu qurxiyo dhinacna waxa yaala markaasi waxyaabihii ay dumarku marmarsanayeen isku qurxinayeen oo ku iibiso meheradeedii dhamayd ayaa albaabada u soo xidhay anigay baabuur isaartay way ila tagtay gabadhii Suudaaniyada ahayd oo waxay ii geysay nin Suudaaniya oo sheekha oo maaragtay ay ii geysay si uu ii cilaajiyo oo ii daweeyo xaaladeyda ula tacaalo sheekhii markaasi waxay tiri wuu i waraystay wuxuu igu yiri i waran waxay tiri iyada ayaa horta la hadashay waxay ku tiri gabadhan waa gabadh Soomaaliyada waa gabadh wadanka keli ku ah waa gabadh reer Masaariya maaragtay la joogtay oo gurigooda 4 cisho ku haysteen xaalada noocaas kala kulantay
timaheedii la waayey ay iska feedhay amba iska shallaysay kastuumooyin wasakha la waayey wixii oo dhan bay u sheegtay allah idin ciseeye kadibna waxay samaysay markay wixii oo dhan u sheegtay ninkii sheekh ahaa waxay tiri wax yar buu aamusay kadib wuxuu yidhi gabadhan waxa loo sameeyey sixirkana waxa u sameeyey ciddan masaarida ay la joogto amba jaarka hadda la tahay waxa kale ee sixirkaasi waxay ugu sameeyeen in ay gabadhan odaygeeda bacdamaaba musaafir uu yahay oo meel waddamada gaalada uu joogo inay odayga kala wareegaan oo markaasi gabadhoodu ay guursato markaasi ninkan ayaa ay maaragtay oo iyada iyo odaygeeda isku diraan oo iyadu odaygaas markaasi lacagta soo diraya ay la wareegaan ay ku darsadaan gabadhoodan curad waxyaabaha aniga la yaabka ila noqday siday dadkeenna ay ajnabiga u aamini karaan aynan u qaloonin waxyaabaha la yaabka ugu weyn igu noqday inay u tagtay inay 4 cisho gurigoodii joogtay yacni waxaasoo dhan waa wax la yaab leh waxa si kale ee la yaab lahayd iyaduna oo aan maaragtay iyaduna yani cajiib ahayd nafteedii dhammayd horta wata walaashani ku aamintay oo dee nafta wax ka muhiimsan ma jiro waxa kale ay ku aamintay la yaab leh waxay tiri lacagtii la iisoo diri jiray ee odaygaygu iisoo diri jiray xawaalada igu soo diri jiray iyo waxay tiri aabbahay laftigiisa oo lacag iisoo diri jiray cimri dheer iyo caafimaad ilaahay waalidkeena inta noolna haynoo siiyo inta dhimatayna ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay qabriga allaha wada nuuriyo kitaabkooda yamiinka allaha ka wada siiyo waalidku waa waalid maaragtay waalidka soomaaliyeed khaasatan yani waa waalid aad qaali waa allaha barakeeyo aabbahay baa waxay tiri isaguna dhinac biilka lacag iigu soo dira bay tiri lacagta aabbahay ii soo diro iyo lacagta zawjkaygu ii soo diraba ninkan odaygan masriga ah ee tagsiilaha ahaa ee gurigiisa i geystay ayaan maxay hayday yani bareerkiisa ii geeyey ayaa waxay tiri ii soo qaado xawaalada iga soo qaada oo magaciisaba la igu soo diraaba odayga igu soo hagaajiya isaga ii soo qaadaya ayaan idhi bacdamaaba aan qof xanuunsan ahay hawl fudayd baabay ka dhigatay inuu isagu usoo qaado odaygan markaa damac baa galay dadkan arka oo damac baa galay waa gabadhan yar ee keligeed meel joogta ee cidlada iska joogta maxay hayday fursad bay u arkeen ee lacagta loo soo dirayo ee lacagtii ayagu lagu soo hagaajiya lacagta nambarkay tahay xataa ay u jeedaan kadibna waxaa dhacday bay tidhi in odaygii sheekha ahaa wax walba loo sheegay gabadhii aan u warramay isaguna dee hadduu i waraystay anna aan u warramay waxay tiri wax yar intuu aamusay ayaa waxa uu yidhi gabadhan sixir baa loo sameeyey reerkaasaana sixray ninkan lacagta soo diraya ee qurbaha joogay inay la wareegaan ayay damceen oo gabadhooda curad ay maaragtay ay u dhisaan ninka ayay ugu talagaleen ciddani gabadhanna ma garanaysaa sixir baa loo sameeyey sixirkaa loo sameeyeyna waxa ay cunto iyo sharaab amba shaah iyo waxay siinayeen ayaa ay ku siiyeen kala daranka waxay tiri walaashu warqadii infisaal ay ku qornayd amba waraaqihii ay maalahan ii gelgelinayeen waan gubi jiray marka wuxuu igu yidhi khalad baa ahayd inaad gubtid gubitaanka aad gubtid xataa qiiqooda ayaa sixirkii ku sii gelaya ayuu ku yidhi sheekhii markaasi waxa uu sameeyey wuxuu isiiyey bay tidhi walaashu dhir aan isku qiicinayo amba aan maaragtay shidanayo waxa kale uu igu yidhi qur-aanka aayadaha noocaasa yaasiin iyo aayatul kursi iyo suurado kale ayuu ku yidhi akhriso waxa u sheegay markaas sixirkan inay ciddani u samaysay damac inuu galay markay arkeen gabadh keligeed ah oo lacag intaa leegna dibadda looga soo dirayo oo lacagtii ayaga lagu soo adreys garaynayo amba ayaga lagu soo xawilayo ayagu soo qaadayaan marka damac ayaa galay ninkan lacagta soo diraya in lala wareego oo maxay hayday gabadhan bannaanka laga dhigo inay ciddani qorshahoodu ahaa ayuu sheekhu u sheegay kadibna waxays odhan kartaan siduu waxaasoo macluumaadka u ogaaday run ahaantii waxaa jira 3 nooc dadka sheekh la yidhaa 3 nooc ayaa jira qof waa sheekh saxa oo dadkan quraan saaraya oo laga yaabaa inuu ku daro waxa laga yaabaa waxaan inuu ilyahay amba astaamihii sixirka weeyaan inuu ku yiraahdo intaas uu yiraahdo oo laakiin quraan uu saaro dadka ayaa jirta oo kaasina waa sheekha saxda ah waxa kale ee jira qof kale oo sheekh la yiraa oo aan sheekh ahayn laakiin la shaqeeya jinka oo isagoo jinka isticmaalaya
qofka sixirka ka biin kara amba yani isku dayay inuu ka biyo ilaah wax biye oo ninkaasina uu iska dhigo sheekh laakiin jin adeegsada oo quraan kaliya aan maaragtay dadka saaninaya jin adeegsada kaasina uu jiraa anuu ninkan noocaas aan u malaynayo suudaanigan gabadha loo geeyey waxaa jira mid saddexaad oo laga yaaba dadka qaar inay sheekh u yaqaaniin amba ku sheegaan laakiin dee qof khuraafaad aaminsan uu yahay oo aan sheekh ahayn ee saaxir ah oo isaguba dadka sixra kaas laftigiisana magaca sheekh ayuu ku gambadaa markaa shuyuukhda amba dadka sheekh lagu sheegaa waa saddex mid sheekh run ah oo aan lagu sheegin sheekh sax ah oo qur'aanka adeegsanaya oo ducooyinkii nebiga laga soo waariday qofka maaragtay ugu ducaynaya oo ku tufaya oo saliidda zaytuunka amba xataa dhir iyo acshaab maaragtay sida qasilka oo kale isticmaalaya biyaha quraanka ugu tufaya sidii sunnada ahayd ee normalka ahayd ee saxda ahayd ee ku daweynaya dadka haddii uu diagnoos siiyo amba uu u sheego qofkan waxa hayana inuu dee astaamihii iyo sheekadii qofku u sheekeeyey uu ka fahmo waxaan inuu sixir yahay iminka inagu waynu fahmaynay markay tiri kastuumooyinkii wasakda ahaa ayaa aan waayey waynu iska garanaynaa waana taan idhi waa wax muhiimayna kelmadaas aan idhaahdo wasakda amba qofka waxa dhididkiisu saaran yahay amba waxa wasakh maaragtay jidhkiisa ka yimi sida dhiigga oo kale allah idin ciseeye waxay u isticmaalayaan nijaasaadkaas because jinka wax sixra ayaa nijaasta raba jinku bacdamaaba ilaahay uu caasi ku yahay shaytaanku ilaahayna wuxuu jecel yahay nadaafadda jinkuna wuxuu jecel yahay dee dadka sixraya dhibaataynaya waxa uu jecel yahay markaa nijaasada markaa kastuuma nijaasale waxay u qaadanaysaa say gabadha ugu sixirto timaha amba qofka maaragtay wax jidhkiisa ka yimi sida timihiisa oo kale waa waxyaabaha lagu sixro dadka marka halkaasaabuu ka fahmayaa ninkan sheekhii waxan inuu sixir yahay oo dadkanina bacdamaba inantii ay xadayso kastuumooyinkii wasakda ahaa iyo tiimihii dee iyagu inay yihiin dadkii sixirka taasi umaba baahnaba cilmi gaara amba sheekhnimo gaara marka taas waa iska caddahay laakiin allahu aclam inuu dee qur'aan keliya waayo markuu tiro kooban uu yidhi tirada noocaasa akhri tirada noocaasa akhri 400 iyo walba waxaas yani dadka sidaa maaragtay maaha sheekh magaranaysaa sida saxda ahayd sunnadii saxda ahayd because 3 goor iyo 7 goor iyo ayay culimada caadiga yidhaahdaan akhriso maarta quraanka ku celcelisay aayatul kursi oo kale laakiin 400 iyo walba 4 iyo saas dadka yiraahdaa badana waa dad khuraafaad uu ku jiro daaweyntooda haddaba ninkaas iyayna ku sii dheeraan wuxuu yahay ilaahay ba og laakiin iyadoo inantu sheekh bay u aamintay waliba waxay tiri waliba waan weydiiyay waxaan ku lacagtiisa kaaga qaatay waxaan u gartaan siiyay bay tiri haddaba waxay tiri inantu qisadeeda aan ku soo celiyay muddo 6 bilood ah ayaan ninkaasi sheekha u tagayay inantan maaragtay saaxiibaday noqotay suudaaniyada khayr allaha siiye ayaa i kaxaysa waxay ii geysaa ninkaas sheekha ah muddo 6 bilood ayaan u geynayay waxaan anigu u garto iyo maalintaan u garto ayaan wax yar siin jiray bay tiri lacag badan xataa waan weydiiyo waxay tiri lacag badan xataa maan siin jirin waxay tiri reerkii waxay dareemeen inaan ilbaxay inaan gacantoodii ka baxay dee jaar baanu iminka nahay laakiin inaan gabadh bartay suudaaniyada oo i kaxaysa oo aan raaco oo aanu israacraacno way dareemeen oo way arkeen dee inaan iyagii ku koobnayn marka waxay igu yidhaahdeen dhegayso suudaanta iska ilaali waanu aragnay gabadha suudaaniyada inaa isbarateen suudaantu dad fiican maaha sixirkiiyo waxaasay ku shaqaystaan hadda eeg inantiiba markaa lagu diray si aan iyaga sixirkooda loo ogaanin bay iyadii ma garanaysa ay ku sheegan waxay iyagu yihiin bay ku sheegan gabadhii suudaaniyada ahayd khayr allaha siiye kadib waxay tiri gabadhii baa i kaxaysay waxay tiri muddo 6 bilood ayay ii geynaysay bay tiri sheekhii 6dii bilood ee aan u tagayay sheekhii bay tiri waxa aan markaa dhacday in aan go'aansado wuxuu igu yidhi ka fogow dadkan sheekhu oo ka fogow oo ka guur markaasi waxay tiri telefoonkaygana waa lala wareegay telefoonkayga haddaan furo waxaan arkayaa bay tiri internetyo kale inay ku xidhan yihiin meelo kale in laga galay matalanba website-yada ay galayso sida facebookeeda oo kale meelo kale in laga furay wax badan oo kol laptop laga furay xataa aniga way soo dirtay liiska waxyaabahaasi halkana meelahan soo saari doona insha Allah shilaanti marka gabadha waxay tiri sheekhu wuxuu igu yiri ka guur marka waxa dhacday meel baadiye ah inay tageen xitaa waxay tiri waxay tusi jireen ii kaxin jireen markay dalxiis u baxayeen reerahooda qaraabadooda meelaha kala duwan ayay ii kaxin jireen oo ay soo bareen waxay tiri goorba sixir labaad bay malaa ii soo cusboonaysiinayeen adigoo intay tageen meel tuula oo dadkoodii qaraabadii u tageen oo anigu aanan raacin doorkaasi ayaan fursadda ka faa'iidaystay intay safarkaa ku maqnaayeen ayaan aniguna gurigii ka guuray bay tiri walaasho
haddaba waxay tiri waalidkay ayaan la tashaday oo aan ku idhi intaanan guurinba reerkani sixir bay ii sameeyeen sheekh baan u tegay suudaaniya saasuu igu yidhi waxaasoo dhibaato ayay isoo mariyeen calooshii way barartay waan xanuunsanahay waan dhibaataysanahay ninkii waanu isku xumaanay ciddii yani wixii dhib ahaa ayaan waalidkay u sheegay waalidkay waxay igula taliyeen waxaan ku idhi markaa telefoonkayga xataa caddayn baan haystaa telefoonkaygii dhammaabaa laigala wareegay wax badan oo wuxuu soo saaraya yani in lagu xidhay wifiyo kale in laga furay maaragtay matalanba appkaan isticmaalayaba in laga furay laptopyadoodii iyo meelahaas waxaasoo dhan waan caddayn ayaan u haystaa waxaan tusi karaa dowladda ayaan tusi karaa sidaa markaan idhi waxa mayam halkan ma soo saarayo because halkan haddaan soo saaro waxaa laga yaabaa walaashu xitaa dadkay u sheegtay ay tustay inay iyaguna arkaan meelihii telefoonaadkooda laga yani waxay sawirkii iyaguna ay fahmaan si qofka markaa shakhsiyaddiisa aynuu qarino ma soo saari doono laakiin saasaan ugu aaminaysaan insha allah biidn illahi tacaala waxa weeye markaa waxa dhacday walaalayaalow in ay tiri walaashu maxay hayday waalidkeeda ay u sheegtay tiri waan dacweynaya waddanka qawaaniin baa ka jirta dadkani way sixreen caddayn waxaan u haystaa yani ma garanaysaa waxyaabihii ay telefoonkayga inay la wareegeen oo telefoonkayga ababkooda sida facebookiisoo kale marka facebook oo kale markaad ka furtid meel kale amba telefoonkaaga marka meel kale laga furo waxyaabaha qaar meelaha qaar baad ku arkaysaa marka wixii baan aan sheegi doonaa oo dowladda aan u sheegi doonaa waalidkay waxay igula taliyeen mayaha samaynay sidaa waddankan qurba weeyaan keligaa baanad joogtaa dadkanina waxay awoodi karaan inay sidhahdaan gabadhan cidlada joogta kawba ka siiya cid soo raadsanaysaaba iska yaray marka intay dhibaato maanta intaa ay ku badeen ka badan ay ku yeeli lahaayeen ee kawba kaa siin lahaayeen maandhooy afkaaga hayso waxba ha dacweynin bas ka guuruun sheekhii qur-aanka isaarey suudaanigana waa ka igula taliyey ka guur dee waxay tiri waaniga iyaga oo musaafira oo meel baadiya tegay oo dadkoodii qaraabadoodii soo booqanaya aniguna fursad intaan ka dhigtay bay tiri aan gurigii ka guuray guryuhu markaa waa guryahan shaqa mafruusha loo yaqaanay alaabtu ay dhex taallo ee guri goglan oo gogashiisaad ku karaysanaysa ah markaasoo kale boorsadaada dharkaad qaadanaysaa ibixiyo i badbaadi waxay tiri halkii baan ka baxay gurigii waxay tiri waxa aan markaasi 6 bilood ayaa dhibaatadaasi ay aan ku jiray oo reerka aan jaar la ahaa oo dawadaasi sheekhaasi aan la socday oo 6 bilood sheekhu qur-aanka isaariyay markii dambe waxaan degay meel kale ayaan degay runtii meeshanay degtay gabadhu waa isla eryadii laakiin labadayda dacal yani isla meeshii bay degan tahay kama foga reerkii sixray laakiin dacal kale ayay xaafadda ay ka degan tahay iyagu laakiin ma oga meeshay degan tahay ilaahayna ha ka badbaadiye walaashu waxay tiri kumaan eekaanin sheekhii suudaaniga ahaaye markaan guuray waxaa la xidhiiday sheekh soomaaliya jooga isagana waxaan ku yidhi qur-aan iisoo saar iisoo akhri qur-aanka iisoo akhri cafwan hilmaamaya qur-aan iisoo akhri ayaan ku idhi iisoo ducee sheekhaasina waxaan ku idhi weliba xaajigayga u ducee waayo waxay tiri walaashu marka aniga sixirkii xanuun iyo dhibaato iyo odaygii inaan naco iyo inaan muranno iyo mashaakilkaasi laygu bilaabay isagii xaggiisiina sixirkii waxa uu ku saameeyey anigii dhammaa ima wareysanayo ima xidhiidhinayo naago kale iyo shukaansi kale iyo howlo kale ayuu galay biilkii iyo naxariistii iyo kalgacalkii iyo wanaaggii iyo magaranaysa xidhiidhkii iyo wixii oo dhan waa uu iga jartay markaa waxaan ku idhi sheekhii soomaaliya joogay sheekhow qur-aanka adu waxaad u akhridaabay tiri odaygayga inuu ilaahay sixirkan iyo waxaan isagana ka fardaamiyo anuu halkanaan kula tacaalayaa sheekha suudaanigaan u tagaaye sheekha soomaaliya jooga waxay tiri bil walba lacag baan u diraa waxaan ku idhaa qur-aan u akhri odaygayga oo jooga waddanka gaalada si uu isagana ilaahay qur-aankaasi maaragta ugu daweeyo dabcan waxaynu ogsoonahay walaalayaal qur-aanku mar walba waa dawo waa caafimaad waa shifaaun linnaas ilaahay baa inoo sheegay laakiin ruqya sharciya shuruudaheedu waxa weeyaan qofku inuu aad ugu ku tuftid oo agtaada u jooga amba biyo ugu tuftid oo maxay hayday qoftee tuftaadu gaadhaysa uu yahay amba biyaha aad ku tuftay uu cabayo amba uu ku qubaysanayo amba uu ku weyse qaadanayo iyo amba saliid zaytuun inta loogu tufo qur-aanka uu marsanayo korkiisa marsanayo laakiin qur-aan adiga oo maaragtay soomaaliya jooga qof yurub jooga u akhri de ilaahay waxaynu u rajaynaynaa niyaddaa wanaagsan iyo magaranaysa khayrka iyo qur-aanka mar walba shifaa ah inuu ilaahay gaadhsiiyo natiijadiina waxaabay leedahay walaashu waabanu aragnay maasha allah oo waxay tiri odaygaygii waa ku caafimaaday oo wuu isoo xidhiidhiyaa oo hadda waxay tiri anigu waan ladnaaday oo waxay tiri maxay hayday yani waa sidii xaaladayadu way ka fiican tahay
haddana dhowaan booqasho ayuu iigu imanayaa waanu magaranaysaa waxaana la ii wada hawl aan magaranaysaa aan ku dhoofo markaasi waxaan rajaynayaa hadda waan caafimaaday oo dhibaatadii isoo martay ee reerka masaaridii isoo mariyeen ilaahay waa iga badbaadiyey intii dhibaatada aan ku jirayna zawjkayga waan ka qarin jiray oo waxaan isoonin jiray hadduu rabo kuma aaminayo hadduu ma rumaysanayo yacni dee xidhiirkooduna waaba kan xumaaday markii uu sixirka lagu sameeyey marka waxay tiri mar dambaan gadaal baan uga sheegay wuxuu igu yidhi maxaad iigu sheegi weyday maxaad dhibtaas maaragtay keligaa aad ugu jirtay maxaad iila qaybsan weyday isaga laftigiisa waa tii laga sii jeediyey dee markan imika loo soo jeediyey ilaahay usoo jeediyey dee wixii ilaahay ka furfuray ayuu isaguba uu sidaa leeyahay marka waxa weeyaan dhibaatadii maanta waan ka baxay bay tiri anu waan ladnaaday waxay tiri weli guri cidla aan deganahay waxaan kula taliyay inay soomaalida dhex degto waxaan kula taliyay inay dadkeeda dhexda ugu jirto soomaali oo dhan meeshay doonaan shanta soomaaliha u dhashaane mar walba waa dadkaagii waa ehelkaagii waa qurbaha marka aad joogtid aad baad ugu baahantahay dadkaaga inaad saa ugu dhex jirtid waxa anigu aan se ka yaabaa inagu waxaynu nahay dadaan qaloon ma fahmaysaa waxaan ka wado noloshayda oo dhan anu qurba ayaan ku koray oo aan intaa ku leekaaday oo aan noloshayda oo dhan qurbaan ku noolaa haddana waxaan ogahay qofka qariibka ah ee aanad isku jinsiyadaydaan ahayn inaad ka qaloonaysid inaanad boqolkiiba boqol qalbiga siinayn boqolkiiba boqol aaminayn wuxuu rabo kugu samayn karaa qofaad jaar la noqotay oo ajnabi a kala tihiin oo aanad dhaqankiisa aqoon oo aanad wax ka filanaysaa aanad garanayn waxyaabaha la yaab kale gabadhan waxay ugu tiri anigu waddan carbeed ayaan ku koray haddana inay masaaridu sidaa u makri badan yihiin dee dabcan waa shicib dhan uma odhan kalo wada xun yihiin laakiin qaar ka mid ihi inay sidaa u makri badan yihiin adiga janalkaaga aad kaga sheekeynaysid crime storieska ayaaban ogaadayba faldambiyeedyada ay sameeyeen ayaaban ogaaday kulaha inantu marka waxaa halkaa kaa muuqata inay gabdhaheennan yaryari ee qurbaha keligood loo diraya ee maxram la-aanta dhoofaya ee hadday rabaan degaya xaafada aan soomaalidii ka fog in ay runtii dayac badani xagga gabdhaheena iyo dhalinyaradeenna uu jiro weliba khaasatan marka qurbaha amba waddan qurba ay joogaan waxaan kula talinayaa gabdhaha inay mar walba la dhoofaan qof maxrama inay la degaan guriga qof maxrama inay mar walba yani waa lagugu soo dhiiranaan karaa waxaan kula taliyay inantaasi inay ka guurto guriga oo ay dhex degto soomaalida oo ay dadkeeda soomaalida ah maaragtay yani iyaga ay aaminto boqolkiiba boqol qof walba ha aamininba laakiin markay noqoto aaminaad malyan goor qofka soomaaligaad aaminaysaa markay noqoto qof ajnabiya sabab qofkan soomaaliga hadduu ku dhibaateeyo meel loo raacu leeyahay waa ina hebel oo reer hebel ka soo jeeda waa markuu qabiilku wax taro oo reer hebel ka soo jeeda dee qofka markaa tolkiisi baa loo tegayaa dadkiisiba iga qabsada aad leedahay meel laga dacweeyaa taqaanaa meel loo maraa taqaanaa maxay hayday adiga wuxuu kugu tixgelin karaa inaad soomaali isla tihiin haddii aa maaragtay isaga sii dhow dihiin oo reer qasax iyo reer qudhac isku tihiin sidaas leeg haddii aa isku deegaan ah tihiin haddii kalena inan soomaaliyeed hablaha soomaalidu markay tahriibaan wiilal soomaaliya oo dacalka kale shanta soomaali ka dhashay ayaa maxay hayday difaaca oo ninka suudaaniga oo ninka liibiga oo nafta barbardhiga oo yidhaa inantayda ma kufsanaysaan allah idin ciseeya uma dhibaataynaysaan oo nafta barbardhiga marka walaalayaal ha ka qaloonina dadkiina hana ka fogaanina ee marka aad weliba khaasatan meel ajnabi aad ku tahay waxa weeyaan raadso qof soomaaliya raadso maamo soomaaliyeed oo kula soo degta gabdho soomaaliyood la degtid waan ogahay marmar badan khilaaf baa dhaca waa la islaayaa waa la murmaa waa la isqabyaaladeeya waxaasoo dhan wuu jira laakiin wallaahi dhibaato walba oo qof soomaaliya kuu geysto waxa ka daran dhibaatada qof ajnabiga kuu geysan karo iminka gabadhaas dhalinyarada ah ee guri keligeed degan darisku xataa markay fahmaan inay keligeed degantahay meeshanu ka hadlaynaa waa masar waxaa laga yaabaa intay dilaan inay ku dilaan inta yare dahabkay xidhantay amba inta yare biilka ee guriga u taalee loo soo diro reerkani waxaabay garteen sixra oo inantiina ku wareejiya ninkaa qurbaha jooga qof kale kowaab ka sinlaa sheekada in baan idinka iloobay gabadh waxay tiri anigu dhaqankooda maan oqon bay tiri dadkan masaarida waxay tiri show dadkani markay gabadhoodu guursanayso faamliga gabadhuna sida hindida ayay wax bixiyaan faamliga ninkuna waxbay bixiyaan waa sidaana jihaaz bay yidhahdaan masaarida barnaamijyadooda markaan ka tarjumaya qaar badan baa kusoo daraa qisaska jihaaz ilbint bay yidhahdaan amba inanteeda waxaan ku diyaarinaynaa ay yidhahdaan
hadduu fadhiga ninku keeno hurdada hooyadu keenis ayaa aabaha inanta dhalay hadday hurdada uu ninku keeno ayagu fadhigay keenayaan haddii kale qasaaladihii talaagadii bishiinadii guriga weelkii wixii yacni labada caa'iladood way iscaawiyaan marka caa'iladaha masaarida maxay riyadoodu tahay inantoodu inay hesho nin isagu isku filan oo inantii odhanaya waxba ugama baahni macaashandadeeda dharka ah ka timaada anaa u iibsanayay waxba idinkama baahni inanta aniga arooskii iyo aqalkii iyo biilkeedii iyo maxay kiradii yani kirada iyo biilka mar walba ninku ha bixiya hadduu rabo laakiin yani alaabtii guriga iyo wax walba anaa bixinaya marka waxay igu tiri maamada anumaan ogeyn bay tiri laakiin maamada inanta dhashay يعني reerkan hooyadoodii reerka masaarida sixray hooyadooda ayaa waxay ii sheegtay inanteeda curad inay la rabto nin Soomaaliya amba ajnabiya oo qurbaha jooga si ayna hooyada iyo family-ga ay uga fakadaan ay uga baxsadaan arinta ah inay iyagu lacag inantooda ku daraan oo inantoodii ay alaab u iibiyaan oo inantoodii gurigeedii ay iyagu maaragtay alaabtii u qalabeeyaan waa sababta inantani sixirka meelaha u gelgelinaysa inanta shabadihi waa sababta reerkani ay u rabeen inay inantan ka furaan xaajigeeda oo ula wareegaan ninka walaashu waxay tiri waliba aniga iyo waalidkayguba waxaanu damacsanayn fiise wadamada reer galbeedka inaan u qalqaalino odayga si uu caruurtiisa ugu soo maaragtay xamaasho oo aanan fiisahaasi waliba lacag ka qaadanin ayaanu damacsanayn oo aanu abaalgud uga dhigno bacdamaaba anigoo xanuunsanaya gurigooda ay igu hayeen waa intayna ogaanin markaasi inay ciddani ay sixreen walaashu waxay tiri hadda alxamdulilah ilaahay iga badbaadiyay waan bedelay sim cardkaygii baan bedelay iyo numberka igu yaqaanin gurigiina waanigii ka guuray waxay tiri laakiin mar walba facebookkayga ayaa la jabsadaa waxay tiri waan ka bedelaa passwordkan ka bedelaa haddana waa la jabsadaa meelaha laga jabsaday oo dhan iyo maaragtay meelaha telefoonkayga laga geli jiray oo dhan maaragtay waan haystaa caddayntoodii laakiin ilaahay baa subxaanahu watacaala makriga ciddaasi iyo sixirkooda iga badbaadiyey dhibaatada ii geysteen dhibaato ka badan ayay ii geysan karayeen laakiin allaha raxmaanka ayaa maaragtay miciin ii noqday subxaanahu jalla fi culah qof ilaahay miciin u yahayna ma dayacna alxamdulilah waxay tiri gabadhii sidaasuu ilaahay subxaanahu watacaala iga badbaadiyey ciddii iyo sharkoodii waxyaabaha la yaab kale gabadhan ku dhacay kolba in baan maaragtay sheekada gadaal baan haddana in ka sheegayaaye waxay tiri maalin walba waxa leegan jiray xaafad cusub oo reerahooda ah reer walba sharaab iyo shaah iyo waxba isiyaan waxay tiri waxa lagu yiraahdaa reer walba waxay tiri marka loo tago aan la iigeeyo waxa lagu yiraahdaa cidayadii baan ku geyninaa soo bax waxay tiri waan aamina waan iska raacaa waxay tiri cid walba oo cidooda oo iigeeyaan interview ba laga qaada haye odayga goormu ku kaxaynaya fiisaha goormu ku soo baxaya iyo waxyaabo noocaas ayaa waxay tiri la weydiiya interview ayaa laga qaada waxay tiri waxay ii soo dirtay sawiro dalxiis meel ay u tageen oo bad ah oo maxay hayday ay doon ay saaran tahay markab inantu oo iyaguna maaragtay isla sawireen sawiro ay wada galgaleen iyada iyo qoyskii masaaridu waxaan marka meesha inantu taagantay badii baaba hoosteeda ah waxaan idhi bismillaahi halkaa haddaabayna kugu tuurin oo maalinka halkaa aad ka badbaadeen nasiibaa badleeda wallaahi billah yani meesha halista ay taagnayd waxa weeyaan waxa la yaab leh sidaynaan u qaloonin aad iyo aad baan ula yaabaa qalada ma garanaysaan waxaan ka wado qalada ilmuhu markuu 4 bilood noqdo qofkaanu aqoonin intuu saa u eego ayuu ooyaa hooyadii buu jeedsadaa qofkan aanu aqoonin amba aanu mar kasta arkin xataa hadduu ehelkiisa yahay laakiin maalin walba uuna arkahayn u qaloodaa ilmuhu waxyaabaha lagu fahmo ilmuhu inuu caqligiisu caadi yahay oo maaragtay maskaxdiisu amba maankiisu amba fahmadiisu ay caadi tahay ayaa lagu gartaa oo yani calaamad bay u tahay ilmuhu inuu qaloodo oo dadkii uu kala garto oo qofkaanu garanayn amba qofka aragtidiisu ku yartahay uu ka qaloodo qaladan marka ilmaha yar ee 4 jirkii garto maxaynu u garan weynay inagoo waaweyn ma sidaynu u aaminaa dad ajaaniba oo maaragtay muddo dheer aynaan aqoonin oo sharkooda aynaan fahmi karahayn oo wax walba oo dhibaato aynoo maaragtay maleegi kara sidaynu amarka ilaahay uga qaloonnaa oo inuga cararnaa dad Soomaaliya dadka qaar baa oran doona Fatima munaadu Soomaalida malaa'ig miyaad u haysataa Soomaalidu dadka way isdhibaatay waa run laakiin saasay tahayna haddana de qof walba qofkiisu aamina xaqiiqada hadii laga hadlayo ta kale qofka Soomaaligihi cidaan u raacay iyo meelan wuxuu raacaaban garanaya cidaan ka dacweeyaan garanaya yani maanta qabiil aliyaal qabiilku doono qofkaasi ha ahaadee ee Soomaaligihi de meelan u raaco ayaan garanaya laakiin ilaahay baan idinku dhaarshay masri waayo masaari waayo gurigiisa hadduu maanta ka guura ama nambarkiisa aad ku taqaanid hadduu ka guura dee maba taqaanidba meel aad u raacdid ma jirto waxyaabaha cajiibka gabadhan waxay ugu tiri telefoonkayga laga shaqaysanaya bay tiri sawiradan xataa wada galnay qaar baa waayay bay tiri
تكلا waxay tiri waxa ii soo baxaya in matalan ba cod baan duubaya amba qof baan la xiriiraya amba telefoon baan diraya telefoonkii meel kale laga dhageysanaya bay tiri yani waxa la yaab leh hakin caadiya ay ku sameeyeen way hakar gareeyeen telefoonkeedii iyo systemkiisi dhamaa ay dhex galeen ma garanaysaa marka waxa soo dhib ah inantaasi alxamdulillah maanta banaanka ay ka joogta oo waa ay ka badbaaday haddaba walaalayaal ilaahay subxaanahu jalla fi culahayna xafido walaalayaalow xaqiiqada haddii laga hadlayo gabdhaheenu way dayacan yihiin haddii wadan qurba ah loo diro haddii shaqo loo diro oo wadan qurba ah loo diro oo maaragtay gabdhaha ka shaqeeya wadamada qurbaha wadamada gabdhaha dhoofaya gabdhaha tahriibaya hadday tahay wallahi gabdhaheenu aad bay u dayacan yihiin shucuubta kale muslimiintii gabdhahooda way ilaashadaan gabadhu kaligeed ma safarto walaalkeed baa raaca aabaheed baa raaca ogaada gabadhu waxa weeyaan waa hilib qaydhin oo maxay haday cidla yaala ay walba allah idin ciseeye damac ayaa ka gelaya dhibaato walba way la kulmi kartaa waa qof dumara waa ina yar waa shabad waa qurux badan tahay waliba gabdhaheenu maasha allah allahumma baarik waa gabdhaha afrika ugu quruxda badan amba caalamka ayaan oran karaa allahumma baarik marka walaalayaalow yani wax weeyaan shayga qaaliga waa la ilaashadaa maanta intaad qaadid shandadaada dahabka ku jiro amba shandadaada lacagtu kugu jirto amba visa cardkaaga wax walbo qiimo leh banaanka intaad dhigtid kama seexatid isagoo banaanka yaala marka walaalayaal wax walbo qiimo leh waa la ilaashadaaye gabdhaha aynu ilaalino ilaahay baa wax xafida allah inoo ilaaliyo runtii gabdhaha in xurriyad la siiyo oo inantu ay noqoto qof magaranaysa zawjka guursanayso iyo nolosheeda go'aamadeeda yani in lala taliyo mooyaane de iyadu ay noqoto qof nolosheeda magaranaysa yani ikhtiyaar u leh waa wax saxa waa waxaanay diinteenuna ayna diidanayn isla mar ahaantaana in inanta la ilaaliyo ma aha xurriyad la'aan waxa weeyaan qiimayn iyo ixtiraam iyo wanaajin iyo magaranaysa ilaalin qofkaaga yar ee aad jeceshay aad ilaashanaysid marka waxa weeyaan gabdhaha aynu ilaalino rabbiga raxmaankii wiil iyo gabadhba allah inoo xafido awlaada shar iyo shaytaan walba allah inooga xijaabo yaynaan magaranaysa dadka ajnabiga 100% qof aanad garanayn dhaqankiisa waxaad kala kulmi kartidba 100% ha aaminin soomaaligii baanad 100% aamini karaynba macdalla waaba qof ajnabiya marka walaalayaalow mar walbana dadkaaga ku dhex jir dadkaaga hadduu qof kugu xumaado ka kala odhanaya waa inta ka aamus laakiin haddaad meel cidla dadaan waxaa tahayba ku qiimaynin waxay ku mahmaahaan carabtu illi maa yacrifak maa ythaminak qofka aan ku aqoon kuma qiimeeyo maanta inan dhan oo soomaaliyeed oo sharaf iyo cise mudan oo ina hebela ma garanaysaa hadday masaari dhex degto day ma garanayaan qof ay tahay laakiin hadday dadkeeda dhex degto waxa weeyaan mid haddaan u qiimaynin ka kala odhanaya alla aabaheed baan aqaanay alla adeerkeed baa hebel ahaa alla reer fiican bay ka dhalatay alla ma heblaaye inantay dhashay alla ma hebel inantuu dhalay dadkaagu waxaa tahay bay ku ogyihiin oo kugu qiimaynaya kugu qadarinayaan wax kale haddayna kugu qadarin soomaalinimo ayay kugu qadarinayaan marka islaamnimo laga yimaado laakiin ninka masrigii muxuu kugu qadarinayaa lacagta halkaasi ayay dadkaasi wax ka maqlaan waxa weeyaan maanta hadduu arko midda kale hablahooda way ilaashadaan ninka carabkii markuu arko inan soomaaliyeed keligeed meel joogta damac waa ka gelaya wuxuu damac uga gelaya dee isagoo hablihiisa wuu ilaashadaa marka inan keligeed meel degan dee wuu yaaba damacna wuu ka gelayaa haddaanu is odhanin kufso haddaanu is odhanin xad haddaanu is odhanin dil aad waxa yaree lacagta ay gacanta ku haysata aad dhacdide ya waxa weeyaan nasiib ayaaba ay leedahay nasiib ayay leedahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin haya gala hooyo marka yani alxamdulilah maanta hadduu ilaahay afli baax bay gashaye ka badbaadiyey oo quraan saar inta lagu sameeyey inantanoo yani la cilaajay maanta ilaahay ka badbaadiyey allahuma laka alxamd inantaa waxaynu ugu ducaynaynaa guurkeedu inuu ilaahay u adkeeyo ilaahay inuu zawjkeeda u sakhiro ilaahay inuu raxmad iyo mawaddo iyo naxariis iyo maxabbe iyo kalgacal badan inuu ilaahay dhexdooda dhigo awlaad saalixiina oo baariyiin ah oo mubaarakiin ah oo muwaxidiin ah oo muslimiin ah oo saalixiin ah oo caafimaad qabana ilaahay inuu ku wada arsaaqo iyadii zawjkeeda maaragtay dhexdooda ilaahay ka abuuro waxa kale ayaan ugu ducaynayaa in ay meesha ay u socoto ee zawjkeedu joogo
ilaahay maaragtay u fududeeyo iyada iyo zawjkeeda inuu ilaahay maaragtay ku mideeyo meesha ay jecel yihiin inay degaan ilaahayna khayr kala kulansiiyo ayaan ugu ducaynayaa inantaa cid walba oo muslina oo muraad lahna ilaahay subxaanahu jalla fi culah inuu muraadkiisa oo aan macsi ahayn midigta ilaahay uu ka geliyo sida ugu dhaqsaha badan leh ayaan ilaahay uga baryayaa qisada inantani waa qiso cajiiba waa qiso aynu ka baranayno wax badan waxaan sugayaa commentkiina idinkuna inaa waanada iyo wacdiga iyo ducada ila kaalmaysaan dhammaanteenna wacyigelin ayay inoo tahay intaynu ku kulmi doono barnaamijyo kale khayr iyo barwaaqo badan ayaan idiin rajaynaya waxaanan idinkaga tegayaa fi amaan illah istawdactukum allah alladii laa tadii wadaa'icu wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk dhammaan walaalaha igu xidhan ee Fatima Muna channelska ku xidhan halkan waxaan idinku soo gudbinayaa iskuul runtii aad u muhiim ah oo haddii aad tahay waalid ilmihiisu ay dhigtaan manhajka ingiriiska haddii ay tahay GCSE-ga ee levelka iyo haddii ay tahay weliba primary schoolka haddii aad rabtid ilmahaaga in group loogu dhigo iyo haddii aad rabtid in one to one keligii casharka loogu soo gudbiyo qaab online ilmahaaga oo meeshu doono caalamka ka jooga haddii uu joogo UK iyo hadduu joogo caalamka meel kaleba haddaba dhammaan walaalayaal waxaa ka faa'iidaysataan iskuulkan Key Stage Learning oo ah iskuul tuushana oo qaab online ilmahaaga casharada oo dhan ka caawinaya haddii ilmahaaga homeschool uu yahay iyo haddii uu iskuul dhigtaba mar walba garab ayuu iskuulkani u noqonayaa iyo casharo ziyaado ah oo ilmaha ka caawinaya oo ku diyaarin karo imtixaanaadkiisa annagoonu ka faa'iidaysanay waa iskuulka inantaydu ay ka dhiganaysay casharadii IGCSE-ga marka maasha Allah tabaaraka Allah runtii aad iyo aad ayaan idinku recommend garaynaya oo aan idin leeyahay idinkuna ka faa'iidaysta Key Stage Learning telefonaadkiisana waxaa ka arkaysaan iyo xiriirkiisa oo dhan halkaasi shaashada ayuu idinku qoran yahay kusoo dhawaada Key Stage Learning